filimka waxa uu ku bilaabanayaa gabar lagu magacaabo Jean Toyle. Waa gabar aad u qurux badan oo degan. Labadeeda waalid waxay kala tageen iyadoo aad u yar, waxayna la nooshahay hooyadeed iyo aabaha labaad ee hooyadeed qaba. Jean waxay dhigataa jaamacadda, waqtiyadeeda firaaqada ahna waxay uga faa'iideysaa oo ay casharo siisaa carruurta xaafadda ku nool. Waxayna xiriir la leedahay wiil ay isku fasal ahaayeen markii ay dhigan jirtay dugsiga sare, kaas oo lagu magacaabo Shin. iyada imtixaanka dugsiga sare ayay ku baastay, sidaasi darteed waxay dhigataa jaamacadda halka uu isaga ku dhacay imtixaanka welina uu dhigto dugsiga sare. waxaana halkaasi ka muuqanaya kala duwanaanshaha labadooda dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaanba. Shin oo ah saaxiibkeed waa qof aad u fudfudud islamarkaana aanan waxba u aabayeelin, iyadana waa qof caqli iyo dadaal badan, laakiin waxay ku jeclaatay maadaama uu yahay qof aad u naxariis badan islamarkaana iyada daryeela. maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhex maray labadooda xiriir sharci darro ah, kaas oo ugu dambayn sababay inay Jean uur qaado. Jean marnaba kama qoomamaynin wixii dhacay, waxayna go'aansatay inay ilmaha uurkeeda ku jira dhasho, waxayna qoyskeeda uurka ka qarinaysay muddo dhan 5 bilood, maadaama ilmaha 5 bilood jira aanan la soo ridi karin si aysan hooyadeed ugu amrin inay ilmaha iska soo rido. kadibna waxay u sheegtay qoyskeeda inay uur leedahay oo ay rabto inay dhasho ilmahaas islamarkaana ay guursato saaxiibkeed Shin. si ay ugu qanciso qoyskeeda inay isku wadi karto guurka iyo waxbarashada ayaa waxay diyaarisay qorshe ay nolosheeda u dejisay, waxayna u soo bandhigtay hooyadeed, laakiin hooyadeed ayaa ka soo horjeesatay oo diiday. waxayna ku qasabtay inay ilmaha iska soo rido, laakiin way diiday, guriga ayayna ka tagtay. kadibna waxay u tagtay qoyska Shin oo ah saaxiibkeed, kuwaas oo si aada u soo dhaweeyey islamarkaana ku farxay uurkeeda. waxayna muujiyeen inay xiise u qabaan inay noqdaan awoowe iyo ayeeyo, waxayna si diiran ugu soo dhaweeyeen qoyskooda. haddaba sheekada waxay noqotay in qoyska gabadha ay ka soo horjeedaan uurka gabadhooda, halka qoyska kale ee wiilkana ay ku faraxsan yihiin. balse markay aragtay sawirada qoyska Shin ee darbiga ku dheggan, aad ayay u murugootay maadaama qoyskan ay u muuqdeen kuwo aad u faraxsan. waxayna dareentay maqnaashaha qoyskeeda, waayo marnaba ma jiro meel gurigaaga amaba guriga hooyada iyo aabbaha la mid ah. inta labadooda waalid ay nool yihiin allaha u daayo, intay ka dhinteenna waxaan allah uga baryaynaa inuu u naxariisto. Jean waxay baahi u qabtaa qof qoyskeeda ka mid ah oo marxaladan adag garab istaaga, sidaasi darteed waxay go'aansatay inay raadiso aabbaheed maadaama hooyadeed ay isku dhacsan yihiin. laakiin waxa kaliya ay aabbaheed ka taqaano waa magaciisa iyo inuu yahay macallin iskuul. waxay qaadatay boorsooyinkeeda waxayna go'aansatay inay aado magaalada uu aabbaheed ku nool yahay. markay halkaasi gaartay waxay tagtay guriga ayeeyadeed iyo awowgeed. markii hore ma aysan rabin inay soo dhaweeyaan oo way diideen, laakiin ugu dambayn way aqbaleen maadaama ay tahay gabadhooda. laakiin waxay ku canaanteen inay ceeb u keentay qoyskooda, hooyadeedna aysan si fiican u tarbiyaynin. Jean guriga waxay ka raadisay sawirka aabbaheed, laakiin ma aysan helin. habeenkaas ayeeyadeed ayay la seexatay. maalintii xigtay waxay u baxday magaalada si ay u raadiso aabbaheed, iyadoo mid u booqatay iskuullada ku yaala magaalada. intii ay joogtay mid ka mid a iskuullada ayaa waxay aragtay gabdho arday ah oo la socda waalidiintood. aad ayay uga murugootay maadaama aysan waalidkeed la socon. iyadana waxay soo xasuusatay markii carruurnimadeedii ay la nooleed hooyadeed iyo ninka hooyadeed qaba ee hadda ah aabbaheed labaad, kaasoo ah qof aad u naxariis badan oo xitaa difaaci jiray haddii ay khalad samayso. intaasi kadib waxay la kulantay saaxiibteedii carruurnimada oo lagu magacaabo Fanan, waxayna ka wada sheekaysteen carruurnimadoodii, waxayna ka wada cunteeyeen mid ka mid a maqaayadaha ku yaala magaalada. kadibna Jean waxay saaxiibteed uga sheekaysay jaceylkeeda, iyadoo ku sheegtay qof aad iyo aad u jecel islamarkaana mas'uul ah oo aan marnaba cid lagu dhaqaaqi doonin. dhanka kale Shin waxa uu la joogaa qoyskiisa iyaga oo ka wada hadlaya uurka lama filaanka ah ee Jean. hooyadiis ayaa ku dhahday weligeen lama kulmin qoyska gabadha, mana u malaynayo inay ogolaan doonaan inay gabadhooda ku guuriyaan, waayo waxaan nahay qoys sabool ah. Shin arrinkaasi waxa uu ku abuuray walwal aad u weyn maadaama uu markii horeba isu arkayey inuusan ahayn qof u qalma amaba ku habboon inuu guursado Jean. dhanka kale qoyskeeda, inkastoo hooyadeed ay ka soo horjeedo guurka, haddana aabbaheeda labaad oo ah ninka hooyadeed qaba waxa uu isku dayey inuu arrinka si hoose u xalliyo. wuxuuna si qarsoodiya ula xiriiray Jean, wuxuuna ku yidhi, aabbo waan ogolahay guurkaaga, berri noo imow oo aan ka wada hadalno. Jean iyada oo ka faa'iidaysanaysa hadalka uu aabbaheeda labaad u sheegay ayaa waxay horay u soo martay isbitaalka, waxayna horay u soo qaadatay sawirka ilmaheeda yar ee caloosha ku jira. hooyadeedna markay aragtay sawirka ilmaha yar waxaa qalbigeeda galay naxariis, waxayna go'aansatay inay taageerto gabadheeda. waxayna ku dhahday, hooyo waxaan soo xasuustay markii aad uurkayga ku jirtay adiga oo aad u yar. maalintaasna waxaan dareemay farxad aad u weyn, mana rabo maanta inaan farxaddaas ka hor istaago. kadibna Jean waxay ku laabatay magaaladii uu aabbaheed joogay si ay halkaasi uga sii raadiso. waxayna iyada oo ka cuntaynaysa mid ka mid a maqaayadaha ku aragtay gabar yar, taas oo u muuqatay qof aad ugu eg. waxayna ka
codsatay inay soo ag fadhiisato, wayna wada cunteeyeen. habeenkii waxay la sheekaysatay ayeeyadeed, waxayna weydiisay maxay sawirada aabbahay uga maqan yihiin guriga, maxaase keenay inaydaan ogeen halka uu aabbahay ku dambeeyey. ayeeyadeed ayaa ku jawaabtay, ma hayo sawirada aabbaha, mana aqaano halka uu ku sugan yahay, laakiin waxaa igu wardambaysay isaga oo magaalada dhinac uga nool. maalintii xigtay Jean, iyada oo ka shakisan in gabadhii yareed ay tahay walaasheed maadaama ay aad ugu eg tahay, ayaa waxay tagtay isla maqaayadii, waxayna ku aragtay isla gabadhii yareed. waxayna weydiisay magaca gabadha. gabadhii yareed ayaa waxay ku jawaabtay in magaceeda la dhaho Kvari, kaas oo la mid ah magaca aabbaha Jean. Jean gabadha ayay raacday ilaa ay gurigeeda tagtay, waxayna la kulantay aabbaheed, waxayna dareentay inuu yahay qof ay horay u aragtay oo kale. degdeg ayay meesha uga carartay iyadoo aanan la hadlin, waayo waxay ogaatay inuu yahay aabbaheed. aabbaheedna markii uu Jean arkay wuu gartay inay tahay gabadhiisa, wuuna ka daba orday, laakiin ma aysan rabin inay u soo jeesato. waxayna ku canaanatay inuusan weligiis weydiinin xaaladeeda oo aanu weligiis dareensiinin inuu yahay aabbaheed. waxayna ku noqotay guriga hooyadeed. halkaasina waxaa la qorsheynayaa in la isku keeno labada qoys si ay isu bartaan, laakiin Jean wuu maqnaa, teleefoonkiisana wuu xirtay oo magaalada ayuu dhinac ka galay. kiisana ma oga halka uu ku sugan yahay. Jean waxay bilowday in saaxiibkeed Jean ay raadiso, laakiin hooyadeed ayaa ku dhahday waa inaad nasataa, sababtoo ah uur ayaad leedahay, isaga ayaa imaan doona haddii uu ku jecel yahay. laakiin Jean arrinkaasi kama dhaadhicin oo waxay go'aansatay inay iyada cagaheeda ku raadiso. aabbaha dhalay Jean kama harin gabadhiisa ee wuxuu soo raadiyey guriga ay degan tahay, wuxuuna halka ay degan tahay ka ogaaday kadib markii boorsadeeda ay ka dhacday intii uu soo daba ordayey. qoyska oo dhan ayaa isku yimid, waxayna go'aansadeen inay si wada jir ah u raadiyaan Jean oo ah wiilkii ay gabadhan isjeclaayeen. Jean maqnaashaha saaxiibkeed ayaa niyad jab ku abuuray, waxayna ka shakisay mustaqbalkeeda iyo halka uu ku dambayn doono. waxay aad uga raadiyeen goobihii uu Jean ku ciyaari jiray, laakiin asxaabtiisa ayaa sheegay inuusan halkaasi imaanin muddo dheer. markay ku wareereen Jean ayaa waxay soo xasuusatay hadal uu hadda ka hor dhahay oo ahaa inuu aadayo machadka lagu barto arrimaha qoyska si uu u noqdo aabbo wanaagsan. intii ay jidka ku sii jireen, Jean way daashay, wayna fadhiisatay si ay u nasato. waxayna hooyadeed weydiisay waxa sababay inay aabbaheed kala tagaan. hooyadeed ayaa uga sheekaysay Jean carruurnimadeedii iyo sida ay u jecleed ciyaaraha kubadda kolayga. hooyadeed ayaa ku dhahday, waxaan go'aansaday wakhtigaas inaad sii wadato waxbarashada, sidoo kale inaad barato kubadda kolayga maadaama aad yaraantaadii aad u jecleed. waxayna hooyadeed u sheegtay in wakhtigaas aabbaheed uu ka xaday lacagtii isdiiwaangelinta si uu uga hortago in Jean ay barato kubadda kolayga maadaama uu aad uga soo horjeeday. taas ayaana sabab u noqotay inay kala tagaan labadooda. dhanka kale aabbaheed iyo ninka hooyadeed qaba way murmeen, mid walbana waxa uu ku doodayaa inuu isaga mas'uul ka yahay Jean oo uu yahay aabbaheed. aabbaheeda labaad oo ah ninka hooyadeed qaba ayaa waxa uu ku yidhi, mas'uuliyadda Jean aniga ayaa qaaday, mana ogolaanayo inaad hadda burburiso qorshaheeda. aabbaheed isaga oo dejinaya ninkan sidaasi u hadlaya ayaa waxa uu ku yidhi, gabadhayda iyadaa ii timid, waxayna iiga baahan tahay garab istaag. taasina macnaheeda ma ahan in adiga aadan muhiim u ahayn. Jean waxay ku aragtaa aabbaheed inaad tahay, run ahaantiina aad ayay ku jeceshahay. intaasi kadibna waxay isku dayeen inay sii wadaan raadinta wiilka maqan ee Jean. markay asxaabtiisii weydiiyeen, laba ka mid a asxaabtiisa ayaa waxay dhaheen, waxaan ku aragnay qolka ardayda isaga oo wax akhrisanaya. markii ay halkaasi tageen ayaa waxay ku arkeen isagoo halkaasi jooga, islamarkaana dareemaya inuu fashil yahay, aanan u qalmin gabadhooda, sidaasi darteedna uu halkan kusoo dhuuntay si uu wax u barto. ugu dambeyn wuxuu usoo laabtay Jean, wuxuuna uga cudur daartay maqnaashihiisa. Jean way ooyday iyada oo ka niyad jabtay saaxiib Jean, waxayna go'aansatay inay guurka joojiso maadaama aysan ku kalsoonaan karin. waxayna ku tiri, wuxuu iiga tegay anigoo u baahan si lama filaan ah, mar kalena wuu iga tegi karaa sida aabbahay oo kale, markaasna inaan keligay ilmaha koriyo ayay noqon doontaa. hooyadeed ayaa isku dayday inay ku qanciso gabadheeda, waxayna ku dhahday, guurka waa tijaabo. markaan guursaday aabbaha waxaan filayay inuu guulaysan doono guurkeenna, laakiin wuu guul daraystay. hase ahaatee kama qoomamayn guurka, waayo aragnimo ayaan ka helay, adigana waan ku helay. hadalladaasi ayaa qalbiga Jean taabtay, waxayna ogolaatay inay Jean dib ula midowdo. qoyska Jean waxay arkeen waraaqaha sawirada wiilkooda ee ku dheggan darbiyada, kaas oo uu ku dhejiyey aabbaha dhalay Jean, wayna uga mahad celiyeen. labada qoys way isbarteen, waxayna Jean si kaftana u weydiiyeen, waa kuma aabbaha? Jean ayaa ku jawaabtay, labadaba waa aabbayaashay, waxay ii yihiin aabbayaal qiimo badan. kadibna Jean waxay la hadashay aabbaheed, waxayna ku dhahday, aabe maxaad ku samaysay lacagtii kubadda
kolayga aan ku baran lahaa ee aad iga xaday. Isagoo qoslaya ayaa waxa uu ku dhahay, waxaan ku iibsaday qalab music maadaama aan musiga jeclaa. Way qosashay wayna ka aamustay. Intaasi kadib aabaheed labaad oo ah ninka hooyadeed qaba ayaa weydiiyey, arooskaaga yaa gacanta ku qaban doona oo ninka kuu dhiibi doona, macnaha labadeena yaa ku bixin doona. Jean waxay dooratay hooyadeed si aysan labadeeda aabbo midkood u xumaynin. Maalinta arooska hooyadeed ayaa gacanta qabatay oo u dhiibtay ninkeeda. Hooyadeedna waxay ku tiri, ma filaysaa guurkan inuu guulaysan doono? Jeanna waxay ku jawaabtay, kama qoomamayn doono haddii uu guurkan fashilmo, sababtoo ah qofna ma oga halka farxaddiisa ay ku jirto. Muhiimadda waa inaan waayo aragnimo ka helo iyo ilmaha uurkayga ku jira.